مسؤولين تجدد قندرات سوماليلاند أي صوبان دقي ترتن لوجليو دسمها حرونتا كيدكا راشينكا سوماليلاند tartan kan ayaa waxa ka qayb qaadanaya 20 shirkadood oo kuwa dhismaha ka shaqeeya waxaana shirkad kasta halka ku soo bandhigtay lacagta ay ku qiimeysay dhismaha xarunta kaydka raashinka ee Soomaaliland ugu horreyn waxa munaasabada ka hadlay agaasimaha guud ee gudida qandaraasyada ee Soomaaliland mas'uul ku hadlayay afka shirkadaha tartanka ka qayb galayay iyo gudoomiyaha hay'adda masuuliyadda dabiiciga ee Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa walba isagoo arkaya abreyskiisii halka lagu qoray gudidiina hor fadhido gudoomiye ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii iyo gudidii oo isku dhameystiran iyo gudoomiyaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo shirkadihii oo iswada hor fadhiya qof walba siilin breyskiisii soo qortay hortiisa halka lagu qoray waxa ka soo qayb galay 20 shirkadood oo aan ka mid nahay waxaan leenahay gudida qandaraasyadu sida feerka ah ee ay u soo bandhigeen iyo sida ay u qabteen shirka iyo sida loo soo qoray dhammaantood waan ku faraxsanahay waanan ku mahadnaqaynaa kulli waxaan maqli jiray in qandaraasyo la qaataa laakiin si hadda 20 shirkadood baan halkan isugu nimo talaabadii ugu horeysana si wanaagsan oo feera ay u dhacday gudoomiyaha gudida iyo dhammaan gudidana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka hay'ad ahaan si official aan u dalbano si feera oo xalaala in ummadda Soomaaliland iyada oo u siman inay u tartanto hool loo dhisayo hay'adda u diyaar garowga iyo afooyinka qaranka ee raashinka qaranka kaydka raashinka qaranka oo runtii aan ugu talagalay inuu noqdo hoolkii kaydka raashinka oo runtii muhiimad weyn leh sababta borsaska iyo hawshan loo galayana ay tahay inuu noqdo wax xalaala oo cad dhismihiisuna uu u noqdo qaranka mid raandhiis yeesha oo aan hadhow tole burbur iyo dhibaato aan runtii ka soo bixin wax sax ah inuu noqdo way ujeedada u weyn inta soo process runtii loo soo maraya ugu dambeyn waxa halka ka hadlay gudoomiyaha gudida qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen waxaana uu sheegay inay si cadaalad ah ugu garsoori doonaan shirkadaha tartankaasi ku jira waana kan isaga arrimahaasi ka hadlaya annagu waxaanu nahay maxkamad baanu nahay garsoor baanu nahay in badan baan ku celcelinay waxaanu idin ballan qaadaynaa tartan hufan oo transparency ah maantana halkan mar labaad baan ku celinayaa waxaanu idin ballan qaadaynaa inaan si cadaalad ah oo fair ah aan idinku soo bandhigno cidda shirkadda ku guuleysatay waxaanu idin ballan qaadaynaa bulshada reer Soomaaliland iyo dhammaan shirkadaha halkan fadhiyaba wixii tartan ay soo socda inaan sida hufan ee cadaaladda aan u soo bandhigi doono Maxamed Faarax Bile telefishinka Star Hargeysa.